ka og tahay mashaariicda cusub ee dekedda Berbera iyo kaalinta maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo soo jiidashada indhaha caalamka ayaa sii kordhay muddadii uu xilka hayay maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi. Toddobaadkan ayay ahayd markii wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Turkiga ay safar ku tageen marsada caalamiga ee Berbera, halkaasi oo uu maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi uu warbixin waafi ah ku siiyey wafdigii ka socday dowladda Turkiga. Danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya Somaliland Ambassador Harun Arlan oo hogaaminayay wafdiga Turkiga ayaa u qushuucay waxqabadka ballaaran ee maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi uu ka qabtay dekedda caalamiga ah ee Berbera, iyadoo uu maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi uu ku soo wareejiyey wafdiga qaybaha kala duwan ee dekedda sida marsada weyn ee Berbera iyo aagga cashuuraha ka caagan ee loo yaqaan Free Zone-ka. Marka laga hadlayo waxqabadka iyo nidaamka dekedda caalamiga ah ee Berbera, waxaa ku suntan oo hormuud u ah maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi oo dadaal iyo karti badan u galay sidii uu hagaajin lahaa nidaamka maamulka ee uu ka shaqeyso dekedda weyn ee caalamiga ah ee Berbera. Dekedda oo ka qayb qaadatay shaqo abuurka dalka ayaa waxaa mushaaro weyn inay shirkadda caalamiga ah DP World ay ku dhawaaqday 29 bishan Maarch inay dhisayso terminal weyn oo loogu talagalay saliidda qaydhin oo kaydad waaweyn oo loogu kaydiyo loo sameynayo. Mashruucaasi durtaba maalgelintiisa la sii daayay. Mashruucan cusub ee DP World ka bilowday dekedda Berbera ayaa dhalinyarada u abuuraya shaqo isla markaana horumar weyn u ah Jamhuuriyadda Somaliland. Adeegsiga iyo isticmaalka dekedda weyn ee caalamiga ah ee Berbera ayaa sare u sii kacaya. Terminalka cusub ayaa waxa uu yeelan doonaa kaydad waaweyn oo lagu kaydin karo in ka badan 180,000 oo tan oo saliidda qaydhin ah. Markii ugu horeysay waxaa terminal casri ah oo loogu talagalay ganacsiga saliidda qaydhin laga hirgelinayaa dekedda caalamiga ah ee Berbera, kaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan ganacsatada iyo dhalinyarada oo shaqo abuur ballaaran ka heli doona. Mashaariicdan cusub waxaa ka faa'iideysan doona ganacsadayaasha gudaha, shaqo abuurka dhalinyarada xirfadaha leh iyo muruqmaalka ayaa shaqo abuur ka faa'iidi doona. Isku soo wada duuduuba muddadii uu xilka hayay maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi waxaa sare u kacay waxqabadka dekedda weyn ee caalamiga ah ee Berbera. Waxaa sii kordhay dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee shaqooyinka ka helay dekedda caalamiga ah ee Berbera. Dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa ku ammaanay maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi shaqo maamul wanaag iyo shaqadii dekedda oo si habsami leh u socota. Isla markaana waxay sheegeen in Siciid Xasan Cabdilaahi uu waxqabad ballaaran ku soo kordhiyay dekedda caalamiga ah ee Berbera. Bulshada reer Somaliland ayaa ka markhaati kacday horumarka baaxadda leh ee ka socda dekedda caalamiga ah ee Berbera iyo sida dardarta leh oo maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi uu shaqo wanaagsan ugu hayo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Arrintan ayaa soo jiidatay indhaha caalamka iyo maalgashadayaasha caalamiga ah oo isha ku haya ahmiyadda ay leedahay dekedda caalamiga ah ee Berbera. Taariikhda ayaa qori doonta waxqabadka ballaaran ee maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi uu ku tallaabsaday.